We are troubled by what is reportedly included in this MOU. We join the chorus of voices in the region and internationally, affirming our respect for Somalia's sovereignty, territorial integrity, and political independence. waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan aan ku soo dhawaada barnaamijka nuxurka wararka qodobada aan idin ku haynana waxaa ka mid ah Abiy Ahmed oo shirkii Kampala ka jeediyay hadal uga sii daraya xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya xasan sheekh maxamuud oo ka muuqurtay inuu ka soo ag muuqdo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo falcelin xooggan oo ka dhalatay Mareykanka oo digniin culus ka soo saaray is-afgaradka Somaliland iyo Itoobiya imaaraadka carabtana wuxuu qaaday tallaabo lama filaan ah kadib heshiiskii Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku daawan doonta ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka qayb galayay shir madaxeedka 19aad ee dalalka dhexdhexaadka ah oo maanta ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda Abiy Ahmed oo hadal ka jeediyay shirkaasi ayaa waxa uu ku adkaystay damaca dalkiisa ee ku aadan helitaanka bad xilli uu dhawaan uu heshiis beeneed uu la galay Somaliland waxa uu sheegay in dalal badan oo aan bad lahayn oo Itoobiya ay ka mid tahay ay ku dhib qabaan ka jawaabista dalabaadka dadkooda taasi oo laga fahmi karayay in uu ku adkaysanayo damiciisa gurcan ee helitaanka badda Soomaaliya hadalkan ayaa imaanaya xilli uu buuq uu ka taagan yahay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee uu la galay Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha qariska Tuurka ah ee Somaliland sidoo kale waxa uu ku sii daray in xiisadda ka dhaxaloonsatay Soomaaliya iyo Itoobiya taasi ay salka ku hayso damaca gurcan ee Abiy iyo waliba heshiiskii koodii bishan Itoobiya ayaa xilligan wajahaysa culays la xiriira heshiiskaasi kaasi oo u muuqda mid ay dhagaha ay ka furaysanayso baaqyada caalamiga ah ee la xiriira ku xadgudubka midnimada Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dawladda Soomaaliya ayaa dagaal diblomaasiyadeed oo dhan walba ah ku qaaday dawladda Itoobiya iyadoo oo taageero caalami ah ka heshay dalalka quwadaha adduunka qaasatan Mareykanka midowga Yurub iyo waliba dalalka UK iyo dalal kale intaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galayay shirka oo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya isaguna goobjooga ka ahaa ayaa waxa uu ka muuqurtay ama uu ka siibtay inuu ka soo dhex muuqdo sawirka guud ee shirkaasi lagu soo xirayay madaxweynaha oo ka qayb galayay shir madaxeedkaasi ayaa ka soo muuqanin sawirka loo dhan yahay ee dhammaan madaxda dalalka ka soo qayb galay ay ka qayb galayeen kaasi oo sidoo kale uu qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali waxaa sawirkaasi ka soo dhex muuqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac kadib markii madaxweynuhu uu ka muuqurtay inuu ka soo ag muuqdo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed xilli ay meel xasaasi ah ay marayso xiisadda u dhaxaysa labada dal Abiy Ahmed ayaa diiday ka qaybgalka shirkii looga hadlayay damiciisa gurcan ee ku wajahnaa badda Soomaaliya kuna marmarsooday inay jiraan ballamo dheeraad ah oo uga muhiimsan shirka urur goboleedka IGAD dawladda Mareykanka ayaa ka digtay halista heshiiskii is-afgaradka ee dhexmaray Itoobiya iyo Somaliland kaasi oo keeni kara ay tagi dagaal ka dhana in kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh ay ka faa'iideystaan dad badan ay ku qortaan hadalkan ayaa waxa uu ergeyga gaarka ee qaaradda Afrika u qaabilsan Mareykanka uu ka sheegay shirkii ka dhacay magaalada Kampala ee ay yeesheen urur goboleedka IGAD Mareykanka waxa uu si buuxa u garab taagan yahay ayuu yiri in uu muujiyo in uu dawladda federaalka Soomaaliya safkeeda yahay Mareykanku wuxuu aqoonsan yahay madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland waxaanu aaminsanahay in maqaamka Somaliland ay tahay arrin u taala Soomaalida oo ay ku jiraan reer Somaliland sidaasi waxa yiri ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika isagoo oo ka qayb galayay shirkii urur goboleedka IGAD dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa khamiistii meesha ka saartay in la dhexdhexaadiyo iyada iyo Itoobiya ilaa Addis Ababa ay ka laabatay is-afgaradkii ay la gashay Somaliland maamulaha guud ee shirkadda uu leeyahay dalka isu taga imaaraadka carabta ee loo yaqaano DP World ee dhinaca dekedaha qaabilsan ayaa waxa uu la kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya
xilli ay taagan tahay xiisadda xoogan ee ka dhalatay heshiis beenaadka ah Itoobiya ay la gashay maamulka qariska xoorka ah ee Somaliland. War qoraal oo uu soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu ku sheegay in DP World ay aad ugu faraxsan tahay in ay si qoto dheer ay u wada shaqeeyaan dawladda Itoobiya. Waxaan ku faraxsanahay inaan si wada jir ah aan u qaabaynayno mustaqbalka ganacsi caalami ah, hal abuurka iyo barwaaqada. Waxaan ku faraxsanahay in aanu ku dhawaaqno inay naga wada go'an tahay tayeynta dekedda Berbera oo ah marin muhiim ah oo isku xidhi doona gobolka, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay baraha bulshada. sidoo kale waxa intaasi uu ku daray in iskaashiga istiraatiijiyadda kaliya ay xoojinayso xiriirka dhaqaalaha, laakiin sidoo kale waxa uu gogol xaarayaa ayuu yiri koboc dhaqaale oo dhexmara Imaaraadka iyo dawladda Itoobiya. marka aynu safka hore kaga jirno isbeddelka isbahaysiga DP World iyo waliba Itoobiya waxa ay ka dhigan tahay tallaabo geesinimo leh oo loo qaaday mustaqbal ifaya oo xidhiidhsan. sidaasi waxa ku yiri qoraalkiisa madaxa shirkadda DP World oo in badan oo kamid ah dekedaha Soomaaliya maamusha. Imaaraadka Carabta oo muddo ka aamusnaa heshiiskii ay dhawaan wada gaareen Somaliland iyo Itoobiya ayaa waxa uu taageeray dawladda federaalka ee Soomaaliya maalin ka hor, isagoo si buuxda ugu muujiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya in uu garabkeeda yahay, is-afgaradkaasina uu yahay mid sharci darro ah oo aan sharciga ku qotamin. wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka oo wafdi ballaaran hogaaminayay kana qayb galayay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta oo ay codsatay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga soo saaray qaraarka lagu taageerayo dawladda Soomaaliya, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Sutaga Imaaraadka Carabta ay soo saartay qoraal lagu yiri intii uu socday kulanka wasiiradu waxaan cadeynay taageerada Imaaraadka iyo madaxbanaanida midnimada dhuleed iyo qarannimo ee Soomaaliya. waxaana ku celinaynaa in Imaaraadku uu garab taagan yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya, maamulka dawladnimo, madaxbanaanida buuxda ee dhulkeeda iyo waliba in dalalka Carabta ay kala shaqeeyaan wax kasta oo ay u arkaan in ay lagama maarmaan u tahay arrintan. si kastaba ha ahaatee kulanka taageerada ee Imaaraadka Carabta oo maalin ka hor ku taageeray ayaa imaanaysa iyadoo 2 toddobaad kadib markii la saxeexay is-afgaradkii beenta ahaa ay wada gaareen Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed. dawladda Imaaraadka Carabta oo saaxiib dhow la ah madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada ayaa haddana waxa ku hareeraysan tuhun ballaaran oo laga shaki qabo inay gadaal ay ka riixayso madaxda dawladda Itoobiya oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. fadlan daawade haddii nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, page-ka noo follow garee, barnaamijkana noo like garee si uu dad badan u gaaro. mahadsanid.